Okay, mar kale iyo casharadeen Excel institutionaliska oo waxyaalaha ugu habboon haddaa Excel baranaysid in laga barto. Weli waxaan ku jirnaa data entry iyo formka hawlihiisaan ku jirnaa. Meeshaan waxaan kusoo qaadanay form in maaragtay form lagu manage garan karo datada Excelka. meeshaan waa aragnaa hadda soccer club waaye studentiga dhigta waa 7 students magacooda aragtaa age-kooda aragtaa groupkay ku jiraan coach assigned coachka maaragtay coachka u dhiga waxa dhan waa aragtaa addresskooda everything. Okay, marka meeshaan aan rabaa inaan xoogaa aan system ka bedelo. meeshaan payment statuska waa mar walba waa inaan markay wax bixiyaan aan ku qoro paid, markayse wax bixin aan ku qoro unpaid maaragtay. marka ma rabo, waxaan rabaa box aan marna check gareysanayo marna aan check gareynayo. bisha markii la gaarano wixii bixi aan check gareeyo, bisha markii maaragtay ay soo socotana aan maaragtay zero ka wada dhigo. Okay, box ka waan marka gashanayaa meeshaan. marka horta waxaan halkaan tagsaan dheh meeshaan dheh clear content meeshaan empty garig. Okay, developerkan aa laga helaa. developerka marka tabska hadduu kugu jirin halkaa kuu joogin badanaa lama isticmaalo. marka tabska kuma jiro halkaa ma soo saarna ribbonka ma saarna. marka waxaa leedahay customize aa leedahay tabska tegaysaa all tabs aa leedahay. marka developerka waa kana maaragtay developer markuu select gareysaya waa kugu jiraa, markuu unselected yahayna waa kaa maqaya. marka waa select gareynaysaa okay leedahay waa kugu jiraa. Okay, developerka markaan tagno meeshaana raba insertkaa raba. marka waa kana form controls aa lahaa waxyaalaha form control maadaama kan uu form yahay. formka markan waxaan rabaa checkboxka inaan gashto. checkboxkan aan rabaa inaan gashto. Okay, checkboxka waa kana waa igu jiraa laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa kor u qaado halkaas. yep waa ka. Okay, waa halkaana waa ka edit gareynaya. waxaan leeyahay checked mida if paid. Okay, meeshaan waxaa la jeegaraynaya keliya if paid. qofka hadduu soo lacagta bixin club fee-ga waa unpaid, hadduu bixiyo waa paid, hadduusan bixin. marka haddaan damco inaan jiido oo aan maaragta ku fiil gareeyo waxaan isticmaali karaa datada dhan select garaysanaysaa ma garat. you select the whole thing saasa u select garaysanaysaa control D waa fill down waa kaasaa marka dhan waa igu wada jiraa. control S waa save garaysatay. meeshaasaan ka manage garaynaya marka payment statuska formkana anytime anywhere in the form taabanaysaa kaasa. okay, payment statuskana waa kaasaa mujda kugu soo darma. laakiin halkaana ka manage garaysanaysaa checked if paid mujda kan waa baxshay 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 kan waa baxshay. okay, bishi kala la gaaray labadaa ma bixin intaan kala bixisay. qofkii aan bixin marka waa aragtaa yaa waay kan parentigiisa yaa waa Faisal dhalay. okay, we gonna call him. our phone number code waa kana phone number code address code waa kana. marka waxaan soo qaadanay clipka ka horeeyay formka sida maaragtay loogu manage gareysto data entry-ga. haddana waxaa aragteen inaad kusii darsan kartid feature kale oo ah box kala dhaho checkbox la dhaho oo aa maaragtay markii aad select gareysid iyo marka aan select gareysidba asaas u manage gareysan kartid. marka aad u mahadsantihiin. waxaan kusoo qaadanay casharkan waxaan kusoo qaadanay sida maaragtay checkboxka loogu soo darsado daarada loogu soo darsado sida ugu maaragtay aan more wax ugu maaragtay manage gareysatid iyo in laga helo developer tabkana lagala soo baxay inta uusan saarnayn gudaha kala soo baxdid kadib halkaan markaa soo dhigatidna developer tabka markaa taabatidna insert commandka aad tagtid marka halkaas meeshaan form controlska ku qoran tahay kala soo baxaysaa. mar kasta waxaa idinku idhaahdaa waxaa inoo ballana next clip.